وبلا سوق هيستبطلوا دي أنا ملاك قاعدة والسومالية كعبيدة ديقلهاي سومالية كعبيدة ديقلهاي نبتونيتو بابجي waxay ugu dhagan yihiin wax kala maaya fiis kala waay ninka doonta aroos ikhtiyaarka ana bas kala tiiba leegu heestaaba adi war mahaysiine idinka tiyaaba leegu heestaaba oo la dhahayaa say u dhigi kartaa nin ajaanib ay aroosaya aabaha Soomaali ma waraabay qabri buu ku jira aroon giba fakadu Soomaali haya du carab ahaana uu dhinto wuxuu haaba vedik aniga ku qaabna tahay ilaahay qof aan ka macabsado nimanka Soomaalida dhan waxay isku dayayaan mataqaan iyagana ka cabsado waxa wiiga maaragtay naakaliyaata binimankii dhan inay u soo fariisteen because waxay la yaaban yihiin oo maskaxdooda u dhicila oo yaani ay ka jiifan laayeen siday naagtaanayto because awal naag markay caayaan oo yara caayaan maaragtay way fadhiisan jirtay siday u soo taagan tahay naagtaanayto sidee bay noogu soo jawaabtaa sidee bay saan iskaga siisaa sidee bay u dhaxdaa Soomaali ma rabo qalbadii kunniya ma waxa la joogaa 1900 Ebrarkii baa la joogaa waxa la joogaa 1900 waxa la joogaa 2000 kala joogay Allah hadda i wasil lahaydeen ya luuqa idin dhex taagnaan lahayd maanta dhanba oo waxa dhahay marba mid soo ibahdilay oo message-ga keeni lahay oo dhihi lahay ma aragtaa tiiba caaway bariyaysa kuwin qaawan ba meeshan joogto i bariyaysay kuwin qaawan fiirsada kuwin qaawan xalay la jiiftay kuwin qaawan video kale oo meelahaas ma aragtay anoo saas baby dhahayo taataabanaya hadda la keeni lahaa ma aragtay ama message oo yimid oo dhahayo Allah waa jeclahay balo waa ku jeclahay layla ma hadli lahayd hadda waxa laga wada dhimanaya waxa waay ya inay i wasaan bay rabaan wallahi wa billahi wa tallahi mataqaana inaysan nimankaasito wax kale la ooyneenin inaysan nimankaasito wax kale la barooranaynin inaysan nimankaasito ma aragtaa mid kasta waxa u malaysa markuu aniga iga hadlaayo hooyadiis inay dhimatay ya oo hadda qabri la geeyay oo la soo aasay ya ama geeri inay gurigooga ka dhacday عمل وهذا ديك بيسكو وذا كرينايان ومحاول كده مد كستا إساس بأكركريا وحاسيت محاول متغنى حدي يوصل هايان مد كستا يسيلكي وقوية مد كستا وحربا ولا مختار قابدرنا ودونك وقفوا الحين ودونك قفكي لأبوري أنا أركب وقفوا شحماني كسبوا هاي ولا مد الله ضدك اعتبرت الدرن لا يا ان فضا نافل ريتشر سوماليا مقتاي وحاجر جرت وحا حسوستا ميل او لدهايو NGO ما فهمتي NGO waxa waay meelaha oo ma aragti dadka oo wax ka sidayeen la isku aruurinayo waa dadka oo jiran mugtaay waxa la hawleyn qaada waxa la idingeena Yurub iyo xaasito wala soo aruurina marka meesha si dadka mataqaan dadka naafada dhan ki gacan dhiman ki Ayub Karlow ku diris low يا كو waxaan ku dhahay Mukhtaar u ku waxaan ku dhahay Ayub Dabac model u qurux ku dhiigla mid u baa jooga meesha dadka wax ka wada sida yihiin dan ma aragta ba message jooga markaas dadkaas amal ma aragta maxaa aniga naafadii dhan igu soo aruuriyay naafadii ya oo faqri ku darsatay aniga maxaa igu soo aruuriyay hadda iska dhaaf aniga gabdhaha bina aadan ya gabdha aysan garanaynin gabdha aysan shaqo ku lahayn ba waxay ku haystaan kuwa qaam ba taageertaan waa gabdha aysan garanaynin gabdha aysan waligood arkin waa gabdhaha komanka jooga waxa lagu haystaa oo lagula dagaalamaya kuwa qaam ba taageertaan الله نمكانا الله أنيك قصر يقوم هرينا يشوف إسكندها والله بينا مليسا واقبلها إسلامات إن سوركوغا حتى موتا فورس ما يستان سوشيال ميديا متشوغان شقة السوشيال ميديا كمالها بومت كستا إدقال كل جرا أو كوهيستا محاكو يخبرو تاغيريسي الله مخص لك ريسك أمس إذيك وحمي أقيدينه صوتي أشلت ما أركتا يا تي أشلت لما كانت هذه يوصل هايين يا وميت كستا وحان كله أنا أصيب حايل أكل هاي أو تيجي لو كوسنا just like ناقة سوما العمل
qof iyo hadal qaadi lahayd ma jir lahayn dhilanimadayda hadda online kaas laga wada ooyaya laga sheekeynayo ma taqaanaa waxaa waaye layma arkin laymana wasin idinku fahma warka because dadkii xijaabnaa ee aayadda ilaahay madaxa ku watay markay siigeynayaan ay free ku siigeynayaan waxa meesha u saarnay daawanaya waa nimanka hadlaaya waa nimanka hadda kuwiin qaawan ka hadlaaya waxa meesha u saaran waaye waxa meesha u saaran nimankaas waaye so ani haddaa free ku siigeyn lahaa ma aragtaa ya oo waxaan ku dhahay adila wiilasha soomaalida wiilal fiican waaye alla wiilasha soomaalida sawa qof icayn laheeda ku dhahay ama qof i hadal heen laheed haba yaraatay ma jirto ba meeshan waxa loo wada qaylinayaa meeshan waxa loo wada oynayaa waa siilkaygaanito haddaan waxaan ku dhahay dibjir kasta oo jarmal jooga iyo faqiir kasta oo kenya jooga iyo faqiir kasta oo meel jooga ilaa waxaan aniga igu dhagay maaha dadkii oo meesha aan ugu nimaadnay la waddanka dad ugu nimaaday dadkaas inta si wallahi la dhamo maaha dadkaas inta moogtahay waxaana ito waa mooriyaantii waa kufsadihii waa dadkii soomaaliya wax soo kufsan jiray waa dadkii soomaaliya naagaha qaadan jiray soomaaliya moogta naagaha waa la qaadan jiray oo maqribkii bannaanka ma istaagi jirnaa lagu dhahay ma fahantay qof aan garan weliba waxaa lagu dhahay mooriyaan weyn buu ahaan jiray ayub carlo mooriyaanka adduunka ugu weyn u hay waxaa la dhahay isbaaro niman haysta buu ku jiri jiray waxaa la dhahay naagaha habeenkii way kufsan jireen meeqa naag aa soo kufsatay siilkii naagihii aa soo kufsatay aa kugu maqan ma adaaba siil kale ka dheediya oo ka hadla tan kale siilkayga inaad saas ugu gariiraysa siilka walaashaada kambaalashar mutada ka maxaa u kantarooli weyse iyo tan Netherlands kharaamada maxaa u kantarooli weyse su'aal waaye no taasi taa waaye dirisle adna waxaad igu soo gariiraysaa wax kale ma cuqdadii aad siilkii hooyada ka soo qaaday waaye because hooyadaan waxaa la ninkii afraad bay maraysaa so hadday hooyadaan nimanka kala bedeli jirtay oo habeenba ninkuu keeni jirtay ya oo habeenba ninkuu keeni jirtay it's not my fault baby it's not my fault hooyadaada waaye aniga maahan hooyadaaba habeenba ninkuu keeni jirtay aabahaaba maalin banaan kugu dulwasi jiray soo ciilkii ma aragtaa ee hooyada ay aabaha kala qaadeen bad kuwiin qaawan ila imaanaysaa basu'aala ku weydiinaad kuwiin qaawanta ku heesay lacagtii dadkii muslimiinta masaakiinta aad u ururisay lacagtii dadkii masaakiinta ee dadceeda dumarkaad joojisay waxaad aruursay wariyaa 7,000 oo dollar lacag badan aad aruursay 7,000 xisaab xilmalaya ka badan baad aruursay halkeed geysa lacagtii dukaan qalin iyo buug baan qaadanaya waa soo xisaabinaya halka xabbe ee saliida ah iyo halka xabbo waxaad bixiseen wariyaa hal xabbo oo saliida iyo hal sonkora iyo hal daqiiqa jawaan bariisa no waxaad bixiseen jawaan sonkora jawaan daqiiqa iyo jawaan qamadiya bixiseen saddexda jawaanaad bixiseen ma fahanteen saddexda jawaan qiimahooga intii dad eed siiseen waa lagu dhufanayaa waa la soo xisaabinayaa so adigu inaad hadasho ood qof ka soo hadasho xaq horta umaba lihidba because lacagtii masaakiinta ayaa kugu maqan xaqii ummadda ayaa kugu maqan ma fahantay ma adaa fasqi ka hadla dirisle ma adaa anoo only fans jooga ayaa adigii naagtaba idin dhaama ma adiga baa fasqi ka hadla ninkii oo naagaha jijiida kenya ma tiidmiya ninkii oo naaguhu madaxa ka xiirayana soo jiifa ma tiidmiya ma adiga baa xaaraan ka hadla xisaab xil male ma adiga baa dirislow isna laakiin aan ku caayo ma fahanta adiga waa ogahay ciila ii qabta moogtahay personal aa u qaadatay ba halkaad ka duqaniimooda waxaa waaye cunugaygaad keenta meesha haddaanan videogaaga la kicin kuwiin qaawan lama dhaho give me a time idinka fiirsada taasi taa waaye ba weli waa ku xisaabinaya ma fahantay dhegayso wariyaa ninkii oo naaga la deganta wariyaa guri aad leedahay xataa ma deganid naag baad la safartaa naag baad baasaboorkeeda haysay naag baad ka sheekaynaysay duruucday xiranaysaa meesha ay ugu jiraan war ma adaa xaaraan ka sheekeeya ma adiga baa xaaraan ka sheekeeya adiga se yaa kaa fusqi badan waryaahe adiga yaa kaa fusqi badan because waxaas leedahay nin aad tahay laguma xisaabinaayo fusqi soomaali ada ugu horeeya
lacagtii dadka islaamka ahay ee rabadaanta aruurinaysay ya ee rabadaanta aruurinaysayna dadka waxaad siisay hal qamadi hal daqiiq iyo hal sokor iyo hal caagado saliida lacagtii inteed geysay haddii diin lagu dhaqmaayo ya aan arad qabin intaad ku dhigdhigto fiis kuma maxaan dhada kuma nadraateen qof kasta si buu fiis u raadsanaya kuwin sababta matqaana because ani adiga isma dhaana wariya fataal baa tahay qaniis baa tahay sharmuud baa tahay dhaqan xumaad wadaa sow aniga se ma waxaad leedahay kuwin qaawan waad ka fiican tahay do you think inaa kuwin qaawan ka fiican tahay igama fiicnid dhaqan xumo aabaheed adaa keena Soomaali dhaqan xumo hooyadeedna anaa keena wariya Soomaali sida adiga ma aragta hadii maanta wax ka bad Soomaaliya timaado kurka laga goynay aniga kurka laga goynay dhiladii ku dhashay was ha iska keenin wariya aniga ina maxaan dhada iga sharaf badanta iga ma sharaf badnid dhilaan ahay dhilaan tahay wariya oo maxaad rabtay markii naagu tima ka xiirayna naaga safarka la gelisay lacagta masaakiinta aad cunaysid ee waxaan ku dhahay aad naaga saas u taataabanaysa u riixaysid maxaad rabtay lagu amaano ma waxaad rabtay sac ku tuno oo ku dhahna alla wiilka branki buu sameeynaya way fiican tahay no qaniis baa tahay sharmuud baa tahay dhilaa tahay soo aniga se ani adigu isma dhaano soo qurux ku dhiglase wuxuu inta ku dhagan yahay uu ku maran yahay waxagii ii sheeg odaygii shantaay oo muddo taqaana mas wax isku maray waa naag waxa soo niman ya naag saas ugu dhagan oo naag silkeeda farataysanaya ba hadda waxay ku leeyihiin gabdhaha inaga baabiinaysa gabdhaha Soomaaliyeed soo baabiye gabdhaha Soomaaliyeed baabiye nin Soomaaliyeed baabiye gabar Soomaaliyeed baaba oday Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed ugu horeeyay ma adiga gabar Soomaaliyeed horta midika u dooda warnaaga hadii noqoto anaaba u dooda wuxuu sheegaba oo dhaha war nimanka iska celiya inta adigu culaysan tahayna waxa waaye silkii aad friiga ku heli jirtay baa lagu diiday hadda oo lagu dhahay no faqir marabno ilkaas ba ku haya soo nimankaana sheegaya walaa ku sheekh iska soo dhigo oo waxaan ku dhahay mara aad moodo dhulka in lagu soo dhaqay soo xirtay because waxa la sheeqid markii awliin dadku ay ka naxaan wax isla laga naxo hadda sheeq ay ka tahay oo danimo ka tahay oo ilaahay ka cabsanayso ya inta TikTok soo istaagto qof maanad aflagaadin lahayn ba adiga amal waanu aragnay shantay baanu aragnay kii qoorta dheeraa hadda koor igu dhaganaa baan aragnay sheekh baana beenaale TikTok joogo oo dhamaan aragnay soo waxba naga qaadmaysa naga mugta aniga ilaahay weyna waaxidka ah ya iyo booliska nooreey waxaan hay qof xig qaadi kara ma jirto isku wada imaada daday qafuur raxmaanku igu talagal nafta ilayga qaadna waa laga qaad daday aan dambi kalena waa la xiray maxay kala diisheeyay aniga ba ani marka iimaan sax dhihin gabdhihii Soomaaliyeed bay baabiinaysa gabdhahaanito adaa soo baabiye inta baabasan adaa baabiye inta sakhraansan adaa sakhran ka dhigay inta waxaan ku dhahay hoogaysa ee balanbalaysa adiga ba soo balanbaliyay inta waxaan ku dhahay single mother joogta adiga ba ubadkaaga ka tagay inta gabar la kufsaday ee dhulka hoostiisa joogta adiga ba soo dilay ma adaa gabar Soomaaliyeed u dooda ma adaa gabar Soomaaliyeed ka naxo gabar Soomaaliyeed u hadla haddii nin Soomaaliya tahay anigana the only thing aad igu dhagdhagaysaan waxa waaye hadda maalin baluuqidii soo gali lahaa oo maalin aan wadan idinku imaan lahaa oo wasi lahaydeen oo maalin mid Snapchat-ka igu soo qaban lahaa gurigiisa jooga ilaah baa ku dhaartay waxay caayil lama arki lahayn ilaah weyna waxadka ku dhaartay waxay caayil lama arki lahayn laakiin waxaad ka wada gubanaysaan ee la wada istaag laadeen waxa waaye ima wasi kartiin because idin ma rabo والله بين ما حدا nimankaas maalinba mid tigru goosan lahay on maalinba mid meel ugu tagi lahay on maalinba mid soo wasi lahay umarba mid Snapchat-ka igu soo qaban lahay ma aragta dad igama lahay waan la seexday amal ma aragta ilaah baan ku dhaartay mid i hadal qaadi lahay oo dhilanimadeeda iyo sharmuutanimadeeda hadda saas loo sheegayo qof sheegi lahay haba yaraata ma jir lahayn shibba la wada dhihi lahay gabadha waa gabar Soomaaliyeed la dhihi lahay gabadha waa gabar Soomaaliyeed because ilkayga rabaa عجائبات القدرة فقيرين تيودن باسيل كيجو أوينيس الإله ربك يا شلي وحكى قنيني لوي فيتون ما أنت وحكى قنيني شرير شيء بلاي إذن أركتي
balaay idin aragtay ba laba qof u socda labada qofeen u socdo hadda magacooga ma sheegayo ba watch me watch me anyway maanta xad waay maantay warkaas intaa ku dhamaaday gabadha idhaysi maanta na sheeko